inaan hadda kusoo dhaweeyo safiirkeena Soomaaliya ee dalka Turkiga danjire Fatxuddin Osbito oo aniga kulligeyga saaxiibkay ah inaan kusoo dhaweeyo si uu shirka noogu soo xiro kalimaadkiisan oo halkan uga yiraahdo marka shirku waa noo xirmaya markuu safiirku soo xiro. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ملي مقلايا waxaan mahad gaar u celinayaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda wasiir ku-xigeenka Fanax oo hogaaminayo waaxda diasporada ururka Restore Somalia Foundation IOM iyo dhammaan dadkii soo qaban qaabiya xafladan quruxda badan. mar labaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta meeshan ku arko mid ka mid ah macallimiinta aan wax ka baranay professorka runtii waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii markii aan Canada iyo meelahaas wax ku baranaynay aan shirarka uga qayb gali jirnay dhaqanka Soomaalida maxaa la dhahaa taariikhda siyaasadda waa dadkii aan ka baranay ku jiraan farxad gaar ah ay tahay waxaan ka mid ahaa Somali National Week dhalinyaradii qaban jiray Canada gaar ahaan Ottawa iyo Toronto labadaba marka aad iyo aad ugu faraxsanahay professor inaan meeshan kugu arko joogitaanka joogtid waxay ka dhigan tahay inay joogaan khabiir oo arrimaha Soomaaliya iyo gaar ahaan dhaqanka oo maayga sida uga hadli jirta xasuusta waagaas oo dad badan oo mataqaanaa Soomaalideena faradheerta kale ayna garanaynin waagaas marka aad iyo aad aan kaaga mahad celinaa ninkii saaxiibkay oo hadda dhahay maayga haddaad ku hadlaynin ama aad fahmaynin ani waxaan leeyahay haddii oo 3 bilood leegeeyo buurha kaba ama baydhabo inaa caadi uga hadlaya rumaysana marka waa idin hambalyeedanayaa uma soo istaagin inaan wax badan dhaho waxaan u soo istaagay shirka quruxda badan inaan soo salaamo idin hambalyeeyo waxaan maqlay inuu yahay markii labaad aad ku qabsataan markii saddexaad miya waxaan rajeynayaa markii inaad ugu soo noqotaan waa meel qurux badan jaaliyad Soomaaliya oo mataqaanaa fiican ee joogto arday u badan annagana waa idin soo dhaweynaynaa aad iyo aad aan u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.